Ağrı Dağı Efsanesi 2 Bacı waa sheeko af Turki ah sidoo kale gudaheeda waxaa ku jira habaar markaan aragno habaarka Turkiga iyo sheekooyinkooda caynka ay yihiin. Bir köylünün 2 kızı varmış. Sarkooda ka bilaabaya. Bir köylünün 2 kızı varmış. Bir gün bu 2 kardeş ovaya odun toplamaya gitmişler. Waxaa jira nin reer tuulada ka oo lahaa 2 gabdhood. Maalin maalmaha ka mid ah labada gabdhood ee walaalaha ah waxay aadeen keynta ama duurka si ay u soo ururiyaan xaabo qoryo. Yeterince odun toplamışlar. Büyük kardeş odunların hepsini küçük kardeşin sırtına yüklemiş ve yola çıkmışlar. Markii ay xaabo in ku filan soo ururiyeen labadii gabdhood tii weyneed xaabadii ay ururiyeen yacni qoryihii ururiyeen dhammaantood waxay dusha ka saartay oo ay tiri qaad walaasheedii ka yareed dhabadii ayayna soo qaadeen. Bir müddet sonra küçük kız ablasına belim çok ağrıdı abla odunları biraz da sen taşı demiş. Gabadhii yarayd waxay walaasheed ku tiri walaasheedii dhabarka ayaa i xanuunay bal markaagana adiga ho oo xaabadan qaad. Ablası hiçbir şey söylememiş. Biraz daha gitmişler. Küçük kız yine ablasına seslenmiş. Gabadhii weyneyd waxba maysa dhihinba yacni dheg jala umaysiin walaasheed oo waa ay sii socdeen. Mar kale haddana gabadhii yarayd waxay u dhawaaqday walaasheed oo waxay tiri sidatan abla çok yoruldum ne olur yardım et. Walaasheydii abla çok yoruldum aad baan u daalay ne olur yardım et. Kelmaddan ne olur yardım et waa maxay maxaa ka halaabaya hadda ay caawiso adoo dhig ka dhiganta yacni maadi caawisid camalna oo isticmaali karna af Soomaaliga qaabkaaba ugu dhow. Ablası küçük kız duymamış bile. Gabadhii weyneyd walaasheed ma aysan maqalba yani maxay ka wadaan dheg jalaq umaysan siin oo yani waxay leedahay maysa dhegeysan. Bu şekilde biraz daha gitmişler. Qaabka ay haddana xoogaa ayakoo ah yacni tii weyneydna ay waxba qaadin tii yaraydna ay culayskii o dhan sido way haddana sii socdeen. Küçük kız sonunda odun yükünü sırtından atmış ve ablasına öyle bir beddua etmiş ki. Gabadhii yarayd ugu dambayn xaabadii dhabarkeeda waa ay ka dhigtay yacni waa iska tuurta waa ay tuurta. Walaasheedna si aan caadi ahayn ayuu habaartay yani öyle bir beddua etmiş ki kelmadda waxay ka dhigan tahay habaarkii ay riday uu ku tusi rabaa. Yani habaarka gabadha yar wuxuu yahay sidatan abla abla dağ olasın taş olasın uzun uzun kış olasın belimdeki ağrı da adın olsun. Yani maxay ka wada walaasheydii way u dhawaaqaysaa dağ olasın buur noqay tiri taş olasın oo dhagax noqo uzun uzun kış olasın wax dheer oo dheer sida kış waxay dhahaan xilliga qabowgu jiro winterka yani maxay ka wadaa jumlada wax dheer oo la xamili waaye sida qabowgo kale noqo adun olsun culayska aan sida yani culayska aan wadana magacaaga ha noqdo maxay ka wadaa adigaba magacaaga culays ha ahaado yani culays ha lagugu yeero. Ablası da küçük kız kardeşinin bedduasına karşılık vermiş. Tii weyneydna yani walaasheedii ka yarayd bedduaas waxay dhahaan habaarkeedii karşılık vermiş. Kelmadda karşılık vermek waa maxay in mataqaanaa qofka hadduu hadal ku dhahan aad u rogaal celiso haddii uu fal kugu samaynayo sidoo kale yacni ka falcelin ka hadal celin labada way noqon kartaa karşılık vermek. Ey benim küçük kardeşim bağrın taş saçların cayır olsun. Walaasheydii iga yarayday boggaaga dhagax timahaaga caws ha noqdaan yani boggaaga dhagax ha noqdo timahaagana caws ha noqdaan bay leedahay. Başın dilin gibi sivri adın da benimki gibi ağrı olsun. Madaxaagana sida carabka wax safan ha noqdo yani wax safan oo carabkoo kale ah ha noqdo magacaagana kaygoo kale adna culays ha lagugu yeero. Derken bir gürültü kopmuş ortalığı bir toz bulut kaplamış. Intaa markii ay isdhaheen
waxaa dhashay oo la maqlay sawaxan. Hareerihii ay joogeenna waxay noqdeen meel ceryaamo ama daruuri hareereysay. Biraz sonra ovada iki yüksek dağ sivrilmiş. In yar ka bacdina keyntii waxaa ka dhashay oo halkaa ka soo baxa laba buur. Biri küçük Ağrı, diğeri büyük Ağrı. Midna waxay noqotay buurtii yarayd ee culays loogu magac daray, midna buurtii weynayd ee loogu magac daray culays. Oo haddeer dalka Turkiga bay ku taalla. Böylece iki geçimsiz kardeşin ikisi de birer dağ olmuş. Sidaa awgeed labadii gabdhood ee walaalaha isxamili kari waayey, yacni nolosha isku xamili waayey oo wada dhaqmi waayey, waxay noqdeen buur. Midkiiba buur buu noqda, yacni habaarkoodii la aqbal. Intaa markay marayso waxaan rabaa hal mar inaan ku celiyo labada habaar ee gabadha yareed iyo tii weyneed ay isdheheen. Maxay tiri? Abla abla dağ olasın, taş olasın, uzun uzun kış olasın, belimdeki ağrı da adın olsun. Walaashayda iga weyneyday, buur noqo oo dhagax noqo oo sidii qabowga wax la xamili kari waaye noqo, culayska dusha ii saaranna magacaaga noqoy. Tii weyneed maxay ugu jawaabtay? Ey benim küçük kardeşim, bağrın taş, saçların cayır olsun. Başın dilin gibi sivri, adın da benim gibi ağrı olsun. Maxay tiri? Walaashayda iga yarayday, bağrın taş, bogaaga dhagax, saçların cayır olsun, timahaagana caws ha noqdaan, başın dilin gibi sivri, madaxaagana sida carabka wax safan oo mudac oo kale ah ha noqon. Halkaana waxaa kusoo xirayaa sheekadii labada gabdhood ee buurta noqdeen. Waxaa filayaa in la fahmay. Asalaamu calaykum.